halkaad nagala socotaan waa Cornel Xabad Channel ku soo dhawaado. waxaan la yaabanahay dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed war Abiy Ahmed baa wuxuu ku guuleystay Nobel Peace Prize. maanta Abiy Ahmed uu Nobel Peace Prize ku guuleystay ma la waayo siyaasi Soomaali ah ee Nobel Peace Prize u muuqdo inuu ku guuleysan doono ya hambalyo badan baa la dirayaa niman badan madax badan baa hambalyeynayso ayagii ma garan waayeen way awoodeen inay ku guuleystaan tilaabada ay qaadi lahaayeen iyo sida uu guuleysan lahaayeen. maanta waxaan idiin sheegayaa madaxweynaha ama ninka la dhihi karo Soomaaliya Nobel Peace Prize Janis dhow buu ku haystaa waa ku guuleysan karaa ya baa idiin sheegayaa. ninkaasi waa madaxweyne Muuse Biixi 30 sano ictiraaf raadinayay 30 sano waa waayay. maanta waxaa ka xiga Nobel Peace Prize inuu ku guuleysto waxaa kaliya ka xiga mataqaana inuu Muqdisho ka daw uu dhaho waa ikanaa nabad baan wadaaya hala qaato sanadka ku xigana Nobel Peace Prize haddii aan loo magacaabi waayo